ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay masaajid lagu qarxiyay Pakistan. waxaa duhurnimadii maanta qarax ismiidaanimo ah oo aad u xoogan lala eegtay masaajid dad ay ku tukanayeen kaasi oo ku yaala magaalada Peshawar ee waqooyiga galbeedka dalka Pakistan. sarkaal ka tirsan booliska deegaanka oo lagu magacaabo Sangidar Khan ayaa wakaalada wararka ee taas u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli ay dadka waxyeeladu soo gaartay oganayeen salaadii duhur ee maanta. wuxuu intaasi ku daray in qayb ka mid ah dhismaha masaajidka ay soo duntay iyadoo la rumaysan yahay in dhowr qof ay ku hoos jiraan dhismaha hoostiisa. ilaa haatan waxaa la xaqiijin yahay dhimashada ugu yaraan 25 qof oo ku cibaadeysanayay masaajidka halka 140 ruux ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Maxamed Azim oo ah hafayeenka isbitaalka Lady Reading ee magaalada Peshawar ayaa sheegay inay qaabileen ilaa 90 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo qaarkood ay xaaladoodu liidato. gaadiidka gurmadka degdeg ah ayaa gaaray goobta iyadoona haatan dhaqaatiir ay ku dadaalayaan sidii ay dhaawacyada faraha badani uga qaadi lahaayeen goobaha qalliinka. sarkaal lagu magacaabo Meena Gul kana tirsan ciidamada booliska dalka Pakistan ayaa sheegay inuu ku sugnaa gudaha masaajidka markii uu qaraxa dhacay. wuxuu xusay in qaraxa masaajidka lala beegsaday uu isaga ka badbaaday. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in markii uu qaraxa dhacay in ka badan 150 qof ee masaajidka ku sugnaayeen. ma jirto cid ilaa haatan sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, balse kooxda isku magacaabda dowladda Islaamka iyo ururka Taliban ee Pakistan ayaa weeraro noocan oo kale ah ka geystay gobolkaasi oo ku yaala meel u dhow xuduudda dalkaasi ay dariska yihiin ee Afghanistan. waxaa falkani cambaarayay ra'iisul hore ee wadanka Pakistan Imran Khan bishii saddexaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii qarax lala eegtay masaajid ku yaala Peshawar ee dalka Pakistan ay ku dhinteen 64 qof.